سواري كذا الحمري مسبيحي بيكانو شوبينا دليرتا عرب هدانو نهاي كما هداينو مساقوليسانيا iska seexdaan ilaa todobay gooyana 10 baan ooga dhigaynaa 10 laakiin uu seexdiya isaga diiday dhuuniga inuu dhaliyo iyo inuu dhintaa dhaamo u ahaay waxaan ku daaranayaa waa nin dalka u soo waday ictiraaf ducaa kugu soo duuxdee daadii qaranka dhaxal la yaabin oo aan aqoonsiga si dhaba UN ugu dhiibin oo aan dhabadii dib u martaan waa wax ka dhiman Ismaaciil Daahir baa la yiraahdaa saakada waxaan u yimid dawla iska wala arkaya sidii xalay baan ku soo jeedaa da Muuse Biixi dhiigaan u shubayna dhalinyarta Arab hadaanu nahay kama hayno inta tagtay dugsiga boodboodaysana u jabi maayaan u leenahay Muuse uu guulaysanaya Muuse uu helaya nuur daxli kuma aaminayno da waxaan leenahay guuliga kaba niman Muuse ku ogay saaka waxaan leeyahay waa gabagaba guulayso mucaaradkana waxaan leeyahay de Muuse guulaysanaya iska seexdaan ilaa guusha kulmiye aynu ku ognay guusha kulmiye ayaynu ku ognay guusha reer Soomaaliland waxaan farayaa de waa Muuse baa wax inoo qabanaya marka shacabka Soomaaliland waxaan leeyahay de doorta Muuse doorta oo farta siiya aniga gurigayga cod badan baa yeel codkan waxaan ugu codanayaa Muuse waxaan ugu soo kalahay horta mujaahidkan aad u jecelahay ee shalay korneelka ahaa ee doraada ahaa jabhadka ee maanta madaxweynaha ayaa saa dambeba waxaan doonayaa inaan afarray qurux badan oo Muuse leeyahay horta u tiriyo bismillaahir rahmaanir rahiim hadduu dhaalku ku horo dhaayin ku curato oo dhay macaan weel la culay la isu dhiibayo oo uu dhijaamaha xareed rahu dhawaaqayo oo roob la dhaca daawata dharabka guud joogto oo ay dhirtii man iyo wax dhaayaha u roontay haddaan nabadda seeskeed la dhigin waa wax ka dhiman dhaalalaha karmeed xoolaha dhan iyo ceel doonay dheen iyo haddaan quracle iyo dhowrba lagu foofin ama aan milmili ku dhaweyn waa wax ka dhiman dhulkoo baadle meel habar dugaag loogu dhici waayey oo inuu habeenkii dhiciyaa dawr ka baqanayso haddii aan miscirir loo dhidbiyo buuxsan lagu dhuujin oo dhacantu kaa jilicsan tahay waa wax ka dhiman xilka qaran haddaan wiil birlaba talada loo dhaarin oo aanu dheeliga ka jirin waxa dhantaalaya oo aanu buuraha dhambalin dheemanka iyo luulka oo aan dhaqaaluhu kobcin oo dhaaxal la yaabin oo aan aqoonsiga si dhaba UN ugu dhiibin oo aan dhabadii dib u martaan waa wax ka dhiman dhalanteedka yaan lagu gohodin beendar loo xidhay buunyaale iyo xabad barsheed la isma dhaafsadee codka dhiibo oo Muuse siyaanu ka dhimanne qaraarihii qaraadha markuu rag isla foor taabtay laakiin uu seexdiyay isaga diiday dhuuniga dalka la iska maqlayo laakiin uu seexdiyay isaga diiday dhuuniga laakiin uu seexdiyay isaga diiday dhuuniga inuu laakiin uu seexdiyay isaga diiday dhuuniga inuu dhaliyo iyo inuu dhintaa dhaamo u ahaay dhalanteedka yaan lagu gohodin beendar loo xidhay buunyaale iyo xabad barsheed la isma dhaafsadee codka dhiibo oo Muuse siyaanu ka dhimanne dhalaan iyo lahayn ubad la dholdhoolsho dhiiggiisa waa kii u huray dhaayin halisteede kuwa dhaanka dabagaalle wadaha u dhagtaaginee dhalanteedka yaan lagu gohodin beendar loo xidhay buunyaale iyo xabad barsheed la isma dhaafsadee codka dhiibo oo Muuse siyaanu ka dhimanne magacaygu waa Saad Xuseen Cismaan waxaan kan ugu soo kalahay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi shan kale aan leenahay shan kale todobay gooyana 10 baan ooga dhigaynaa 10 lama soo koobi kara qiirada ay haysa maalintii halkaasi laga qaxay waxaan ku yiri waxana dadkii gacanta la hayay nasiib uma aan helin waxbarasho si socod iyo soo socod hooyaday iyo walaalay waxay ku dhinteen maxaa ku dhacday qixi deetana dalka markii la soo noqday dadkii aan ku aqriyaystay markii la joogay waxba kama noola Muuse Biixi baan ka sii maqlaya maxaa ku dhacday mujaahidiinta iyo wax yar oo kale marka halkan ay hambaliyaan u wadaa Muuse Biixi iyo mujaahidiinta kaleba waan hambaliyaynayaa dhammaan qaranka Soomaaliland waan hambaliyaynayaa Muuse Biixi waxaan leeyahay jiro joog guulayso Allahu akbar Soomaaliland Allahu akbar cadow badan bay leedahay kuwanta Ilaahay inuu inaga qabto bismillaahir rahmaanir rahiim Muuse guulayso waliga gadaal hamarin ducaan duugo bimbahan miska ku duldhigay ducaan duugo bimbahan dah kugu xidhay Muuse guulayso waliga gadaal hamarin jalle aliba law jiirkaaga cadow ma jaro adduunyada nolol ku jooga aakhirana jid wacan
janna fardawsan rabow jeex lagaaga dhigo muuse u guulaysa weliga gadaal ha marin ducaa kugu soo duxdee da'dii qaranka ayaan badanoo waabtiriskiisu wuxuu galaa wiilasha markay dhiidhiyahaan dhiigu boqolka tago markay dhanaana tanaha dhiigu subaga yahay magacaygu waa muniire axmed maxamuud saaka waxaan ugu soo kalay xamaasadaysa iyo farxad badan waxaana bulshada halkan uga baaqaya inay muuse biixu u codeeyaan sababtoo muuse waa mujaahid soo jabay dee isagaanayna maamuli kara ictiraafkana isagaa inoo soo wada insha allah marka maanta farxaddeeda lama soo koobi karo saaka waa soo kalay farxad darteed iyo xamaasada aysan xagga la jooga inaan muujiyo dareenka farxadda leenu qabo xisbiga kulmiye waayo adu maxaa isleedahay khaas waad ku dooranaysaa madaxweynaha anu madaxweynaha waxaan ku dooranayaa inuu mujaahid yahay u soo jabay dalkana aanu dheeldheel maanta u dhiibi karin waayo waa nin ku soo tabcay qofna wuxuu maanta ku soo tabcay ma dhiibi karo saasaan ku dooranayaa muhiimadda ugu weyn waa intaas ciid ay waday qiiro ay wada haddana ay wada waxaan jecelahay oon ku soo dhawaynayaa madaxweynahayga Soomaaliland inuu Muuse Cabdi inuu madaxweynaha uu yahay ahaadu 7 sano noo hayo ayaan jecelahay anigu waxaan se ka hadlayaa maalinka maanta dad reer Saaaqaynu nahay dad Saaqaynu nahay dad u soo halgabaynu nahay waxaan u sheegayaa anigu odayga la dhaaciro ee madaxweynaha doonaya aniga waa abtigay waxaan leeyahay kuma xumaysanayno macaarid iyo maxaafidba dawladda macaaridka toosiya laakiin toosid maaha sidani waxa weeyaan qaran dumis qarankeena yaynaan dumin annagu dumar baana waan ku soo qaxnay ilaa burcaan ka soo qaxay ninkayga halkaas lagu dilay oo lagu qashay waxaan jecelahay anigu in laynaga daayo orodka iyo dhibaatada iyo qaxarka annagu dhibaato ma karno dhibaataanu soo marno dhibaato ma karno madaxweynahana waa ninkii u soo dhaawacmay ee joogay qaaxo ee joogay meel kasta ee wax walba noo qabtay annagu waxaanu jecelay madaxweynaha iyaga Muuse Biix Cabdi maxaad mar labaad ku dooranaysaa madaxweynaha dooranayaa wuxuu qabtay baan ku dooranayaa uu dhisay uu la soo baxay buuggii wax ku yaalay ayaan u soo dooranayaa anigu aqligaygana qof weyn baan hayo konton jira waxaan jecelahay konton jir baan ahay inay ducada qaataan macaaridku oo aad yar joogan maalinta laga helo waa inay dhibaato nagu shibin qax baan maraynaayna qaxin ilaahayna aanu iyagana qaxin meel walba way ka yimaadeen dabadahay degayn dadkoodii halkaas ninkan dalkiisii iyo dhulkiisii baa haysta qashar kama maqna ubadkiisii baa jooga dadkaas la dareeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa Ban Cabdulqaadir Cabdalle saaka shantii waxay soo kicisay caadifad waxaan maxay ahayd u ololaynaya madaxweyne Muuse Biix Cabdi shan dambaan leeyahay mudane madaxweyne shan dambe ayaan kugu soo dhaweynaynaa kursiga iyo codkaba saaka halkan waxaan u imid mar labaad Muuse Biix u dooranayaa Muuse Biix marka u horeysa wuxuu ahaa mujaahidkii dalkeena u soo halgamay ee dhiigiisa iyo dhuuxiisa u soo shubay markoobaad mar labaadna waxa weeyaan geesi cadawga Soomaaliland neceb yahay oo geesiya oo qarankiisa jecel oo ummadiisa jecel saasaan ku dooranaya reer Soomaaliland waxaan leeyahay geesiga cadawga Soomaaliland neceb yahay ha loo codeeyaan leeyahay oo codka hala siiyo fartiina hala seeginaan leeyahay ninkii maalin adag inoo halgamay ee dhiigiisa dhuuxiisa inoo shubay naftiisa inoo huray inaguna codkeena inoo hurnaan leeyahay imakaan dooranaya mar labaad baan dooranayaa ha guulaysa Muuse Biix baan leeyahay maxaa isleedahay u qaban doonaa marka doorato qabashahooya kama hadlayo anu wax ka soo sheekeeyay taariikh wuxuu qaban doonaa insha Allah imika markuu mar labaad ku soo noqdo ictiraafkii buu dhameystiri doonaa Muuse Biix waxyaalo badan buu qabtay difaaca qaranka shaqo qaran waxaanu ka sugaynaa ictiraafkii nabadgelyadu sugay ciidamadu dhisay Muuse Biix waxaan leenahay 7 sano dambe soo noqo waanu ku dooran marka hore waxaan ku dooranay haladayga shaxshaxda ma sha Allah ayaanu ku dooranay wax qabadku insha Allah wuu iska iman doonaa Ilaahay buu ku xidhan wax qabad oo waynu helay insha Allah laakiin sida kale ayuu noo deeqay ayuu noo cajabiyay cadawgii hajaba maanu leenahay guulaysta baan leenahay mar labaad insha Allah bidmillaahi kariim noolow inta hadal sii badin maayo hooye intaasina dalka iyo dadka iyo shacabka waan salaamay bidmillaahi kariim ducaan ku daray insha Allah hambaliyo assalaamu calaykum wa salaamaya dhammaan madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxda Soomaaliland oo dhan baan salaamaya waxaan ku dooranayaa madaxweynaha Soomaaliland wadi karaya
muuse bixi bayna wadi karayaa isagan xilka u dhiibaynaa isagan codaynanaa 7 sano dambe ayaan u ballan qaadnay waxaana kubishaka ayaa fariin u dirayaa laakiin kubishaka waxaan arkay gaari laangaruus oo la 7 ayaa codaynta la codaynaya dadku waxay toosaan 4 subaxnimo iyo 5 subaxnimo anagu 5 taanu kuyuga galeynaa iyo 4 subaxnimo anaaba ka koowa marka waxaan u baahanahay in 6 subaxnimo ay shaqaaluhu imaadaan shaqaalaha codaynta ka shaqeynaya dalka isagu ma wadi karaya muuse bixi wax badan buu qabtay madaxdii qaran wuxuu dhisay ciidamada qaranka meel kasta uu ka shaqeeyay dagaalka iyo waxa ay hawlaha ina soo maray dhibaatooyinka badan isaga un baa inaga soo saaray annagu muuse aanu taageersanay muuse un baa noo wadi karaya saaka waxa kan waxaan imid dabaaldega xusbiga kulmiye ee maanta aqan ugu soo baxay madaxweynaha qarankana mar labaad inuu guuleystaan doonaya sababtoo ah waa muwaadin dhaba oo qarannimada Soomaaliland ay ku weyn tahay de shirka ka marxaati oo ka ummadii maanta taagan tahay dhammaan waan salaamayaa taageerayaasha meesha isku soo baxayna waan salaamayaa idinkoo tiitiina wada ka madcelinaya sad waraysiga qaadeen iyo sad waraysateen aad u galaysaa musharaxaad wadanta haduu mar labaad madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu guuleysto shaalow guuleysanayaa waxaan filayaa shaqada dhalinyarada oo u shaqeeya shaqaabuur aqoonsiga oo hirgeliyo aqoonsiga aan sugano iyo horumarka uu sii wado ayaan ka rajeynaa magacayga saddexan waa Hani Muuse Cabdilaahi waxaan ku daaranayaa waa nin dalka u soo waday ictiraaf saas ku daaranayaa Muuse Biixi Cabdi xildid Roble saaka lixdii baan soo kalaay marka waxaan doonayaa xusbiga inuu 5 kala qabto iyo 5 kalaba marka waxaan doonayaa inshaalla inuu ku guuleysto maxaa ku dooranaysaa madaxweynaha mar labaad madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wax ku door macna waa ii gaar ma garanaysaa laakiin ummadda ma wax la qaba ma garatay marka waxa leeyahay guul iyo 5 kale saaka beerta xorriyadda waxa lagu soo kalaay saan dareenkayga iyo dadnimadayda u muujiyo ula doorto xusbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Muuse Biixi taasoo lagu rajeynayno inuu mar kale 5 kale aan lagu ridno taa waxa iska raaciyay waxyaabo fara badan marka loo aragnay intayadii wal soo raacnay dadkeedii waxa lagu dooranay waxyaabo badan oo uu qabtay dad wada xaqiraya ayaa jira xaqiraadiisa marka loo aragnay dad badan oo xaqiraya waxa lagu dooranay inaanu soo saarno madaxweynaha عليكم السلام بسم الله الحمد لله وقورين إلهي بقى ما هذله مقعي ويحيى محمود حسن وحنا كمده هاي دنيرتها تكمد اللحلة تكشون كران حافظ حواله ما أنت وحنا نصوك الله يعني قد رأيك كعبر يا حسب جينا موجنا يا وحقبت كيس نكفانا يا أيابن هالكلماتي فرحة ولي بكلات كلمة هي كلات وحنا نقدر أنا فرح سنين نمد أنا قد نبضينا نمد الحمد لله إلهي بقى ما هذله أنت مدحوينا وحنا كود دورنا وحقبت كيس يا كآخر سبوقك تيسا waxa la yaabay oo la tacaajubisa waxyaalo soo qabtay runtii waa nin aad u fikraya wadankana la xajaclo badan kale sida darteed inta xume laga sheegaa aad bay u faafta laakiin buugtiisa hadaad akhrisid xaqiiqada dhabta baad u tagaysaa weligeedna beent way faafi jirtay iyo xumaha laga faafinaya ceeb maaha laakiin markuu xaqu yimaado baadilka u dhacaa insha Allah kulmiyo soo baxaya guul baana u leenahay waana rajo ku qabnaa inaanu soo bixi doono insha Allah Cabdiraxmaan Muuse Maxamuud Sabatar وليش ما هاي بالماي مركب واحد وصل صار قال لي جاي مدحوينها دورشة أنت بها دورشة مدحوين موسى بيحيى عبدي حديد ثبتر مركب واحد بحنا وراح يوقف يا عسراف وضم شمال لا بين هالقاعدة مركب دريك هي وضم تسوينا واي دريك هذا محاد مر لبعض كود دورنا مدحوينه وحقبت كيسة يا كرسيس يا هيريس تقنا مسبيحي waxyaabo badan oo dadka looga ku aqalaw way maxaad noo sheegi kartaa waxa iga sheegi karaa isagoo waa nin wax go'aan adag waa nin amaanada ummadda ilaaliya xifdi leh waxaad leedahay dadka taageerayaasha ama waxaan leeyahay mar labaad u codeeya iyo mar saddexaad u codeeya ya ilaahay dalka ku xifdiya amaanada Allah ku ilaaliyo wala loo ducaynaa waxaan saaka bartan ugu soo dhacay horta ma jecleen weligiina maan arag beerta xorriyadda balse laakiin maadaama dadka dhiigoogu qof dee noqotay inaa faanfaan ina meel laisku imaado waxaan u imaaday inaan ismuujiyo ciddaan ahay una codaynayo
madaxweynaheena dalka mar labaad Muuse Biixi Cabdi waxaan leenahay soo noqo mar labaad guul soo horta arkay waaye badan soo maray waqti adag taasoo ay tahay ana anfici kara ummadeena imika iyo mar dambaba raxme ibraan cilmi magacaygu wasaaka waxaan ka soo qayb galay farxadda qusbiga ma sha Allah kulmiye waxaan leeyahay Muuse banaanka u tago bacadka roorayay oo beerkuna xanjaadkii tago baraka dheeraaday ina baasha lala maamulaa waa barkuma taale isu bogo hogaan baad wada u buuqanagadayso